Mustafe oo kamid ah macallimiinta bixin doonta tababarkan kor loogu qaaday aqoonta shaqaalaha oo ka warramay tababarkan shaqaalaha la siin doono iyo qaybaha uu ka koobnaan doono. Dawlad kaliya adduunka wax ma qabato. Haddaynu idhaahno dawlad baynu sugaynaa ma shaqaynayso. Marka waxa weeyaan academic institutionsku qaybtooda waa inay ka qaataan, ganacsadayaashu waa inay qaybtooda ka qaataan. Dawladdu waa wax la isku waa efforts la isku keenay weeyaan. idinkuna waliba waxa tihiin waa bilicdii dawladda. warka baxaya muxuu ahaayeen wadanka muxuu ahaa imagekiisi ayaad sidaan marka the capacity-gu inuu dhisnaado aad bay muhiim u tahay annagu marka mas'uuliyadda saaran waxa weeyaan ama public ha ahaato ama private ha ahaatee inaanu horta dadka aqoontooda kobcino waliba mas'uuliyadda siisana waxa weeyaan governmental institutionska inaanu iyaga wixii aan la qaban karayna ee shaqo ah ee waxbarisa ee taakulayna aanu siino jaamacadda waa waajibkeeda waa lagu leeyahay cidna ma taqaana ummadda fariisanaysa inay taa qabato tababarku wuxuu ahaan doonaa tababar ka kooban 21 cisho kaas oo ay ku kulmeen 4 waaxood oo kala duwan oo ka socda wasaaradda warfaafinta taas oo aan ugu talagalnay in kolba qayb aan siino xagga tababarka satellite-ka solar system-ka iyo xagga antennada transmitterska iyo receiverska tababarkaas waxaan ugu talagalnay in sida ugu fiican ay ka faa'iideystaan shaqaalaha wasaaraddu taas oo aan doonayno in aad loogu kobciyo qaabka ay shaqaaluhu uga qaadan doonaan xirfadooda nolol maalmeedka ee shaqo waxa marka jaamacadda Golis insha Allah ay idinku ballan qaadaysaa in mar walba tababarkaas uu qaab ku socon doono ahaado tababar aad u qiimo badan oo tayo leh insha Allah meedalkiisana aad arki doontaan agaasimayaasha waaxaha farsamada ayaan Cabdirasaaq Jaamac iyo shaqaalaha Jaamac Awil Nuur ayaa sheegay in tababarkan yahay mid kor loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha isla markaasina waxay shaqaalaha u soo jeediyeen inay ka faa'iideystaan muddada uu tababarkan socdo muddo 18 sanadood laga jooga wasaaradda warfaafinta ka ahayeen anaha shaqaale gaar ahaan farsamada anaha والله حمدي waxaan ka noqday madaxa ma waaxda farsamada agaasimaheedii baan noqday waa markii ugu horeysay waaxda farsamadu intii aan joogay iyo intii aan shaqaalaha ka ahaa ay tababar noocan oo kala helaan waxaan shaqaalaha waaxda farsamada aan aad ugu boorinayaa ama baan ku dardaarayaa jaaniska maanta ay heleen shaqaale weynihii kale ee wasaaradda warfaafintu aysan helin inay ka faa'iideystaan iyagoo dhinacyo badan isku jira xagga mashiinada oo solar system-tii la bari doono satellite-kii qaybii transmitterada ee warlaliska efamyada haday tahay wajada gaaban haday tahay la bari doono waxaan ku hanweynahay inay tababarka aysan qasaarin doonin oo si fiican uga faa'iideysan doonaan waxaan shaqaaluhu waxay leedahay qayb liidahay qiimeynta wuxuu qiimeyn ku sameeyaa tababarka soo la bixiyo dadkii tababarkan qaatay ma anfacay shaqadoodii wax ma ka bedelay ma dhaqan gali ama dabaqeen qiimeyn baa daba socon doonta hadii la haydmo marka waxa la ka baahan yahay tababarka halka ka qaadanaysaan inaad si wacan u fahantaan oo aad u weelaysaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo furay tababarkaasi ayaa sheegay in tababarkan yahay mid kor loogu qaaday aqoonta shaqaalaha sidoo kale waxa wasiirku ka warramay kaalinta ay wasaaradda warfaafintu kaga jirta qaranka isagoo oo shaqaalaha tababarkan qaadan doonana u soo jeediyay inay ka faa'iideystaan tacabkan uu qaranku gelinayo halkan jaamacad baa idin siinaysa macallimiin baa idin siinaysa waqti bay ku bixinayaan waqtigooda iyo hantida iyo aqoontooda inay ku siiyaan ciyaar ma 21 casho laakiin haday ka faa'iideysanaysaa waa inay noqotaa cid garanaysa waxani waxay tahay aqoontu way shaqaynaysaa kulli intaan anigu wasaaradda joogo wasaaraddana waa la kala hufaya ragga ay shaandhadu qabato bigi wasaaradda dan kala how inaad sii joogto ragga ay shaandhadu qabataa noqoneen dadka inaad wax u sheegtaan u diyaar garoob dhalinyarada raggii hagi lahaabaatiin dadkii dadka wax u sheegi lahaabaatiin dadkii aqoonta baran lahaabaa haddii aan idin canaanto ama aan wax idinku idhaahdo waxaan joogaa da'dii ama waqtigii waalidnimada waxa weeye nabcaansho iyo diidmo maahe waa kordhi orodka weyn dalka naftaada wuxuu baro secondly dalka wax ku tar oo wax ku soo kordhi isqiyaas inaad ka mid noqoto mishiinka wareegaya ee ummadan hore u socodsiinay inaad ka mid noqoto intii aad qof bil aadana wax ka sheegi lahayd waxaad waqti siisaa inaad qof bil aadana wax barto
oo aad si fiican u hagto taas aakhiriya adduunkaba faa'iido kugu jirta waxaan idinku boorinayaa inaad hawshaasi fiican u qaadataan oo aad fahantaan in efforts badan oo jaamacadeed iyo shaqooyinkiiba aad saa uga maqnaydeen oo aad dadkii dalkaba anfacdaan waxa la idin baray intaasi kadib wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxa uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda Golis isla markaasina ay wax ku bartaan ardayda dhigata jaamacadda Golis oo loo qalabeeyay hab casri ah